tirada dhimashada ayaa sii kordhaysay doon ku degtay xeebaha waddanka Tunisia oo 8 tahriibayaal badan. meydadka 54 qof ayay heleen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia kadib hawlo baadigoob oo ay bilaabeen markii ay doontu quustay badda Mediterranean-ka. doonta ayaa ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga balse waxay quustay waqti yar kadib markii ay ka shiraacatay xeebta magaalada Safakas ee dalka Tunisia. meydadka 13 qof ayay hore u heleen ciidamada ilaalada xeebaha ee Tunisia iyadoo dadka kalena jimcaha maanta la helay. waxa suurtagal ah in meydad kale oo badan la helo. badi muhaajiriinta dhintay ayaa ka soo jeeda wadamada ka hooseeya saxaraha qaaradda Afrika sida ay sheegeen mas'uuliyiinta magaalada xeebta ah ee Safakas. bishii la soo dhaafay ayaa xeebaha Tunisia laga soo badbaadiyay 80 muhaajiriin kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay ku qaraqantay badda. xeebaha waddanka Tunisia ayaa sanadihii dambe ahaa bartilmaameed muhiim u ah muhaajiriinta beegsanaya qaaradda Yurub iyagoo uga gudbaya dhanka waddanka Talyaaniga qaarkoodna khadad kale raacaya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 bilood ee ugu horeeyay sanadkan ay 150% kordheen dadka ka tahriibaya xeebaha Tunisia. Khadar Haybasaab TV.